madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo socdaal dhanka dhulka ah ku marayay degmooyinka xeebaha ee gobolada Awdal iyo Salal ayaa waxa uu maanta socdaal kala duwan ku maray degmooyinka Cali Xayd, Farda-lagu Xidh, Gaarisa iyo Garbadadar waxaana wafdiga uu hogaaminayo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi si diiran loogu soo dhaweeyay degmooyinka kala duwan ee uu socdaalka ku marayay. madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxaa si diiran loogu soo dhaweeyay degmada Garbadadar ee gobolka Awdal waxa uuna halkaasi kula hadlay shacabka ku nool degmadaasi waxaana hadaladiisii kamid ahaa Garbadadar mar waxaan uga baahdayaa soo dhaweynta aan kala harka lahayn ee kalgacalka iyo niyad samaanta iyo walaaltinimada ku muuqatay ugu soo dhaweyseen anigii wafdigo waan idinka mahadnaqaynaa mahad ballaaran oo ka shala waan idinka mahadnaqaynaa mar labaadna waxaan ka mahadnaqayaa haddii beri halkan aan idinku soo maray 3 sano ka horreysay oo aan idinka codsaday walaalayaal ii codeeyo oo warqad yar igu rida waxbay taraysaa inaad warqadii kala hadla aan ku rideen oo Garbadadar boqolkiiba kulmiye soo baxdayna idinkuna taa waa igula xisaabtamaysaa oo maanta haddaad bacad joojisaan oo tirahdaan waran waadiinayna waxaa qabanaya waxa ma haynee iyana waa u taaganahay waan ka jawaabaya dadkii ugu horreeyay iska wuxuu qabsaa bilaabay Awdal bay ka bilaabantay maantana haddaa iska wuxuu qabsaa ku dhisteen qaar kale badan inay ku dhistaan waa la sugayaa dawladuna taageeradeeda la daba joogaysaa Jabuuti waxaan idinka sidaa walaaltinimo isdhexgal iyo inay waxna la qabtaan inta ay dhaqaale inagu dhaamaan Somaliland wada caalamku u dhiso oo baananka adduunka inaga soo gaadha wada qulaaleena siiya ilaa hadda teena waxaan u garanay in loo ka soo baxdo oo boorama tagto maamulka degmada Garbadadar iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada Somaliland oo madaxweynaha ku wehelinayay safarkiisa goobtaasi ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen marka madaxweyne waxaan kugu soo dhaweynaynaa magaaladii Garbadadar adiga iyo waftigaad wadata dhammaantiinna waxaan ugu soo dhaweynaynaa si gacmo furan ah magaalada Garbadadar maaha markii u horeysay ee timaado waa markii labaad ee timaado adigoo xisbiga kulmiye gudoomiyayga ah ayaad halkan igu timiday weli waan xasuusanaa abaalkii aad halkan ka gashay madaxweyne qodob kaliya aan ka hadlayaa dadka xeebuhu uu caydhoobay waadigii ogaa 4 magaalay ku soo urureen Lughayo iyo Gargaara Garbadadar iyo Gaarisa 14kii cishe ee kaarbedelka inoo hadhay in la yiraaho Lughayo baa la inii dhigayaa ummadda inta leeg waxa weeyaan dib bay nagu tahay qoraal baan soo samaysanana komishanka qarankan ula imanana madaxweyne inaad arrinkan naga gacan siiso aad ugu mahad celinayaa si gaar ah wuxuu isku xidhay inuu isku dayo in wadamada adduunka uu ka dhaadhiciyo qadiyadda Somaliland maalintii Jabuuti uu baxay 7 cisho kamuuso Kenya wuxuu socday waxay ahayd ummadan qarankani waxa uu qabsaday iyo adduunka xaq waxay nagu leenahay inuu ka dhaadhiciyo xaqeena inuu soo rido 2 Jabuuti oo nahay wadan aynu jaarnahay isku cimilanahay isku dhaqannahay isku dadnahay isku dhaqaalanahay uu ku xujisiyay talafteedu waxa sheegaysaa inuu ka fikirayo madaxweynuhu in adduunkeena ictiraafkii laga helo nolosha muwaadinkana saameynteedii la wanaajiyo waxa kale madaxweynuhu sidoo kale soo dhameeyay oo Jabuuti kala soo hadlay sidii tokoshi wax lagala qaban lahaa iyo dekadii Saylac oo loo balaarin lahaa taasi waa guulaha madaxweynuhu soo qabtay marka aan ugu hambalyeynaa madaxweynaha waxaan soo marnay Looyacado oo si qurux badan iyo karaamo leh loogu soo dhaweeyay sidoo kale madaxweynaha iyo wafdiga uu hogaaminayo ayaa waxa ay gaadheen degmada Gaarisa waxaana halkaasi ay kula hadleen shacabka ku nool degmadaasi waxaana hadaladoodii kamid ahaa dhammaantiin waxaan leenahay ku soo dhawaada magaalada Gaarisa magaaladanu waa magaalada marka hore waa sariska ciidanka qaranka saldhigiisa كل ماشي عيدك وكوبا دينا عربته وكوبا دنتهاي والمسكير من البضني معلمين تياس كتها دالو نهاي إن waxay leedahay iskuulo ayagu dhisteen oo kanu ka koob yahay mushaharka xitaa macallimiinta
intii ay leeyihiin baa bixiya aad bay ugu mahadsan oo wax qabad waanu soo dhaweynaynaa wax kastoo ay qabsanayaanna waanu ku taageersanahay dhibaato nabadgelyo kama jirto waxaase laakiin kolley loo baahan yahay marka dee laba dumar isku xaafad isku yacyacaan laba askaro bilayso idhaa halkaa yar fadhiista saldhigaasi uu ka dhiman yahay waxaan idinku hambalyeynayaa soo dhaweyntiina wanaagsan iyo ilaa xalay sidaynu heeganka u ahayn degmanimadeenu kolley dadku degmu doondoona waatanu xalay isyar xansanlee dee intaasaynu kala sii dhawaanaba ku xidhan saynu wax qabsanno aad baan idiin bogaadinayaa runtii dhulkiina saa u dhisateen waxay muuqatay waxa waraabihii haddeerto waa bariga oo waxba garanayn waxaanu garanay xabadin baanu sii qorin baanu isla hortaaganay waanu isdhammaynay dowladda xoolaheedii iyo maxay hantideedii halkaasay ku dhammaadeen waana la kala celinaya laakiin idinku waa idinkan dee dalkeeni dhisaya ee ilaa cusbitaalladii dhiiggu lagu kaydinaya aad samaysateen yani ma aha waxaanu kaba fikeri karno marka aad baanu idin bogaadinaa aad baanu idin ammaanaynaa soo dhaweynta madaxweynaha aad soo dhawaysan iyo waftigiisuna aad iyo aad waa mid aad u qiimo sarrayso aan runtii waxaan idinka mahadnaqaynaa dadaalka badan soo jeedka badan waayeel iyo caruur iyo ciroole iyo rag iyo dumar sidaa noo soo dhaweyseen aad iyo aad baa ugu mahadsantihin walaalkii jira ahaaba markaa fariintaan diraya waxa weliba dhalinyarada dadku waa in walaaloobaa cabdicasiis jaamacige goobjoog TV Boorama.